بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غيرت وادي السلام يا ملك استوى جوكتان سو دوادا سايكو يام داكين ماستيكو وقتي يتويغا هادي وعنادو فضلا waxaan ka codsanayaa hadii aad nagu cusub tahay oo aad beedka aad ku cusub tahay beedka flow dhaho si aan wixii halkaan u soo gelino aysan ku dhaafin muuqaalkan hadii uu ku soo gaaro fadlan muuqaalka share iyo like had iyo jeer waxaan idin kula talinayaa walaalahayga Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay had iyo jeerba shareta iyo like-ta waxay noo tahay dhiirigelin ayay noo tahay share iyo like yana ka waayin wax kala kaaga baahni soo dhawaada xildhibaan Abuukar Maxamed Jacfar xildhibaankii Mursade oo xaqiiqatan iskoor jibiye iskoor ayuu jibiye tan iyo 2006 markii maxkamadaha bilowdeen wixii ka dambeeyay ama xilliga ka horba aysan dhicin iskoor nuucan ah nin Muqdisho intuu ka soo baxo asagoo ciidan iyo technical wato soo mara intaas oo masaafo ah kuna yimaada degmada Maxaas ee bariga Hiiraan waa iskoor aan caadi ahayn xildhibaan Jacfar waan salaamayaa marka hore xildhibaan Jacfar xaqiiqatan horta waa nin geesi ah waa nin howlkar ah waxa lagu yaqaan ninkan inkastoo ay yiraahdaan dadka qaar waa xariif laakiin xariifnimadiisa ayaan ku wadanaa Jacfar intuu Muqdisho oo degmada Hurwadaag gudoomiyaha ka ahay iyo intuu yacni daynilaba oo ka ahay gudoomiyaha waayahaas ayaa ninkan la bartay xaqiiqatan waagii Hurwadaag oo yacni oo suuqa bakaaraha oo aslaaxiyay oo jidadka u sameeyay oo degmada oo fadhiyo Hurwadaag waagaas horta aad loo bartay Jacfar horta wax walba ha cuno laakiin wax qabto waa xaqiiqatan waxa lagu ogaaday Hurwadaag iyo daynil ayaa lagu ogaaday marka waxa weeye waxaan dhihi lahaa qofka hadduu wax cunayo waxna qabanayo waxa weeye waa qof wanaagsan dhihi karnaa waayahay Jacfar haatan wuxuu ku siman yahay ama uu joogaa degmada Maxaas ayuu joogaa degmada Maxaas oo yacni u noqotay saldhig oo halkaasi yacni kaga duulo deegaanka Galgaduud iyo deegaanadiisaba insha Allah waxaan rajaynaynaa caawa hadalkan meel la iga qoro caawa ayaankiisa kaleento ceelbuur ayay ku caweyn doonaan Jacfar iyo xulfadiisaba caawa ha la iga qoro caawa ayaanka caawa ah ayaankiisa soo socdo waxaan rajaynaynaa in ceelbuur halkaas ay ku caweyn doonaan insha Allah bismillaahi kariim waxa weeye Jacfar xaqiiqatan doorkii hore oo yacni halkaa yimid waatii ay ka duuleen la tagay degmada meesha la yiraahdo Wabxo halkaas waa la qabtay adigu saacado kooban ayaa la joogay ka bacdina xaalad military ayaa dib looga soo baxay Jacfar Muqdisho ku laabtay Muqdisho tagay dhowr asbuuc oo Muqdisho ku maqnaay wuu soo tabaabsheystay Mursado dhan oo isku yeeray waa la soo caraadiyay waa la soo habracayay Jacfar waxa weeye markaan ku talagal ayuu ku socdaa sidii horaha moodina qawaarijay markaa waxaan u malaynayaa in isleediin haddana waa Jacfar waa idinka laaban doonaa laakiin ilama aha aniga oo Jacfar markaan laabanayo sababtoo ah waxaan ognahay inuu tabaabsheeysi ay ku maqnaayeen beesha Mursade Muqdisho halkaasi oo yacni shir uga socdeen muddooyinkii la soo dhaafay wax alaalo markaas dhaqaale iyo hub iyo ciidan waxay haysteen wadada ayay soo maray waxa ku daliil ah Jacfar hadii oo ama awood uusan markaan uusan la soo laaban ama ciidan iyo hub uusan wadan diyaarado ku imaan lahay baldoona soo degi lahay halkaas oo ka soo gal lahay laakiin ninka u soo bareeray inuu intuu Muqdisho ka soo dhaqaaqo luqd ku soo baxo ku yimaado degmada Maxaas ku yimaaday waxa ogaan kartaan hawshaasi inay hawl sahlan aysan ahayn waa la fahmi karaa qof kasta wax garanayana wuu fahmi karaa ninka yacni intaa soo maray isku soo maray waxa soo dhul ah soo Muqdisho ka soo baxay iskoorkaasna yacni aan wali ilaa iyo hadda aan arag qof yacni intaa sameeyay oo intuu Muqdisho ka soo baxa asoo ciidan wato ilaa iyo halkaa yimaada wali ma hayno taariikhda kuma hayno marka waxa weeye waxaan leeyahay Jacfar saacadahan soo socdo maalmaha soo socdo howlgalkiisii ayuu bilaabi rabaa Wabxuuna ka bilaabi rabaa waxaan leeyahay Wabxood ayaa farin u diray
mursadaha reer wabxoodow waxaan idin leeyahay doorkii dhaweyto markii ay ciidanka idin soo gaareen waa wada cararteen shabaabkii ayaa daba gasheen markii laga soo baxayna waa soo laabateen howlahaasna waa howlaha shabaabka war shabaab yuusan god idinku ridin waxa idiin soo socda waa dadkiinnii shabaabkan yacni wada garamgaramka ah ee gabdhihiinna iska haysto wallaahi bilaahi tallaahi waxaa idinkaga waji fiican idinkaga yacni dhow wiilashaan jacfar oo wato ee beesha mursada ah sababtoo ah waa mursada idinkana mursadaa tihiin waxaan idin leeyahay war ka digtoonaada war markaan wax laabanaya ma lahan jacfar xaqiiqatan inuusan markaan dib u laaban doonin waxaan idin leeyahay deegaanadiina ku nagaada haddii aad carartaan oo sidii hore aad yeeshaan deegaanka dad waa loo hayaa dad loo weymaayo deegaanka wabxo iyo deegaanada kaleetaba haddii aad ka wada baxdaan astiradaan u faarajiya dibay u laaban doonaane xaqiiqatan dad baa loo helayaa anaa idin dhahayaba dad ayaa loo heli doonaa oo halkaasi dego oo deegaanadaasi dego ku dhaqmo haddii aad mursadow yacni shabaabka aad daba gashaan oo ciidanka aad ka carartaan war waxaan arki jirnay ciidan loo soo ordo argagixiso laga cararo ayaan arki jirnaye ma waxaa hadda noo keenteen mursade inaad yacni ciidankii qaranka soomaaliyeed aad ka carartaan iyo beeshiinnaba niman aan la aqoon waxay yihiinna oo idinku heeb iyo idinku deegaan iyo idinku dalba aan ahayn inaad daba gashaan oo warkoodii aad qaadataan mursadow kala daaya baashaas isma qabato hawshaasi ka jooga nimankaan waa argagixiso nimankaan waxay idii hayaan ma lahan haddaa is leedihiin diintii allah yacni aa lagu soo duulay war diin nimankaani ma wadaan nimankaani diin ay wadaan haba yaraatee shabaab ma jirto culummada iyo ummadda soomaaliyeed miyaa been sheegayso nimankaan waa la arkay waxay yihiin diinka ay wadaanna waa la arkay marka mursadow ha ku hodmina jacfar waa soo socdaa jacfar comeback wuu soo laabtay xaqiiqda dhabtaana markaa idin siiyana markaan wax laabasho la yidhaha ma jiraan jacfar markaan ma idinka laaban doono haddaa is leedihiin jacfar waa imaanayaa wuuna haddana laabanayaa sidii hore u dhacdo kalento xaqiiqatan inuusan jacfar dib dambe u laabanayn waxaada dhihi lahay niman yahow mursade deegaankiina adinkaa iskale nimankaa cadowgaa aydin haysto muddooyinka muddada ee 12 sano ahne waxay idin hayaan male waa aragteen waxay dhibaatada idinku hayaan waa ogtihiine soo dhawaysta walaalkiin wiilkiina soo dhawaysta ciidamadiina soo dhawaysta wiilashiina soo dhawaysta war xaqiiqatan argagixisa intaad u ordaysaan oo dowlad ka cararaysaan mursadow ma caafimaad qabtaan runtaan idin sheegaya aniga mursade ma caafimaad qabtaan dowladaan diidayaa urur argagixiso ah ayaan rabaan daba ordayaan daba guclaynayaa markay cararaanba waxaas ilmaadeerayaal iska daaya mursadow jacfar waa ku salaamayaa saaxiibkay waxaan ku leeyahay hore u soco deegaanadaada xorayso dadkaada yacni hadday kaa cararaan iyo haddii kaleentaba adigu hadafkaada wuxuu yahay argagixisada inaad ka saarta deegaankaada ka saara deegaankaada waa ku garab taagannahay waa ku taageersannahay meel walbo aan joogno waan kuu soo duceynaynaa inuu ilaahay argagixisadaan si dhib la'aana ayadoo qofna kaaga dhimanin yaa inay iska horeeraan iska baxaan taas ayaa ilaahay ka rajaynaynaa marka asxaabay dhammaan waxaa idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan shanta soomaaliyeed waa idin salaamayaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aad beejkan markii ugu horreyso aad soo booqato ay tahay fadlan waxaan kaa codsanayaa beejka inaad follow aad tirahdid muuqaal kale share iyo like intaba ku taabo waan idin salaamayaa dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu